Wafdigan ka socday howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa booqday deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose si ay u qiimeeyaan baahiyaha degdegga ah ee halkaasi ka jira iyo xaaladda ammaan ee deegaankaasi. Tuulada Bariire oo dhawaan laga saaray Al-Shabaab kadib howlgal ay si wadajir ah u fuliyeen ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa waxaa haatan ku soo laabtay inta badan dadka deegaanka ee halkaasi isaga cararay. Xubnaha ka socday AMISOM ee booqday Bariire ayaa kulamo la qaatay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, kuwa AMISOM oo halkaasi ku sugan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaasi ku soo laabatay. Wafdiga ka socday AMISOM ayaa sheegay in muhiimadu ay tahay in dib loo dhiso buundada kala qaybisa tuulada. Wafdiga ka socda AMISOM ayaa sheegay in muhiim ay tahay in dib loo dhiso buundada kala qaybisa tuuladan maadaama ay dhib weyn ku qabaan ciidamada qalabka sidii halkaasi ku sugan Al-Shabaabna ay buundadaasi horey u jibiyeen. Taliyaha ciidanka Uganda ee deegaanka Bariire, Patrick Obera, ayaa sheegay in dadka haatan ay helayaan kalsooni iyagoo si tartiib ah ugu soo laabanayo deegaanka. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee deegaanka Bariire, Kabtan Cabdi Cali Raage, ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay ku dhiiradeen inay sameeyaan dadaallo dheeraad ah si loo yareeyo dhibaatada deegaankan ka taagnayd. Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in dadku ay ku soo laabteen deegaankan diyaarna u yihiin in buundada ay dib u dhistaan. Warkan oo ay baahisay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamo dheeraad ah la geeyay deegaanka Bariire kuwaas oo ka kala tirsan ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Aweys Maxamuud Jilcow, Cable TV, Muqdisho.